أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada janalka kaahiya balaas haddii aad janalka ku cusub tahay sabskraib saar gambaleelkana furo muuqaalkana laagarey asxaabtada la wadaag mahadsanidin bismillahi raxmaani raxiim waxaan bartan kaga jirnaa maadadeena xisaabta fasalka toddobaad cutubka afaraad oo loo yaqaano saami iyo saamigal halkan maanta waxaan diiradda ku saaraynaa cutubkan oo loo yaqaano saami iyo saamigal waa maxay saami waa maxay saamigal labaasan kala saarayno waxaan casharkan ku baran doonaa waa maxay saami iyo waa maxay saamigal objectivekayna waxaa waaye inaan saami fahanno waa loo yaqaano saamigalna aan fahanno good waayahay waa maxay saamiyu ku bilaaba marka saami maxaa la yidhahdaa saami waa isbarbardhigga laba tiro ama laba shay oo isku nuuc ah si loo muujiyo inta uu mid waliba ka yar yahay kan kale inta uu mid waliba ka yar yahay si loo muujiyo ee waxaa loo yaqaanaa saami ayaa loo yaqaanaa saami ayaa la yidhaha sawirkan fiiri halkan waxaa yaala laba kooboo biyo ah intan waxaa yaala koob oo ah waxyaaba rinji ayaa ku jira koob rinji ah iyo laba koob oo biyo ah koobkan rinji ah waxaa qasi kara laba kooboo biyo ah reshigu lagu sheega kaas marka saamiga lagu sheegayo koob rinji ah koob rinjiga noocaana koobkankiisa inuu qasin wuxuu u baahan yahay laba koob oo biyo ah laba koob oo rinji haddii laga dhigane wuxuu u baahan yahay 4 koob oo ah biyo ah reshigu kaasaa la yidhaahdo waa saami waa isbarbardhigga laba tiro ama laba shay oo isku nooc ah si loo muujiyo inta uu mid waliba kan kale ka yar yahay waxaa muujin hadda hal koob oo rinji ah iyo laba koob oo biyo ah hal koob oo rinji aad marka haysatid waxaa u baahan tahay laba laab koor oo biyo ah laba koob oo rinji aad marka haysatid waxaa u baahan tahay laba laab koor oo biyo ah marka kan 4 haddii laga dhigo kan 2 u dhiganto isku filan u qasi karta kan 2 haddii laga dhigo biyo kan hal koobaa ku filan waxaa la yidhaha ratio amba saami ayaa la yidhaha saami saamigu waxa uu tilmaamaa xiriirka u dhexeeya laba tiro iyo wax ka badan laba tiro iyo wax ka badan xiriirka u dhexeeya uu tilmaamayaa waayahay qaabka loo qoro saami saami waxaa loo qoraa a ilaa b laba dhibcood ilaa loo akrinaa amba a loo qaybiyo b saamiga nuucan oo loo qoraa a laba dhibcoodba amba a loo qaybiyo ba saasaa loo qoraa saami labaas nuuc ayaa ugu caansan tusaalaha koowaad waxaa la yidhi fasalka toddobaad waxaa dhigta 12 wiil iyo 18 gabdhood fasalkaas maxaa dhigata 12 wiil iyo 18 gabdhood saamiga wiilasha iyo gabdhaha marka saami ahaan marka loo qoro waxay naqeen 12 ilaa 18 ay naqaneen markii la isku yareeyo marka saamiga meesha ugu yar oo loo qori karo waxay naqaneen labadan dhinac maxay wadaagaan inta 6 loo qaybi kara intana 6 12 u qaybi waa 2 18 u qaybi waa 3 waa 2 ilaa 3 2 to 3 hel dhijir waa marka ratio ugu yar waxa waaye 2 ilaa 3 macnaha 2 3 ku dar 5 maano 5 ardayba 3 kamid waa gabdho 2 kamid waa wiilal saas waaye 5 arday meel la suuq kan fasalkaas kamid 3 kamid ah waa gabdho 2 kamid ahna waa wiilal sidaan u fiiriye 2 koob biyo iyo rinji isku qasay solutionkii oo melankii oo meel ku jira la soo qaat melankaas waxaa la leeyahay marka wuxuu ka kooban yahay 3 koob kasta oo melankaas kamid ah 2 biyo naqane halna rinji u naqanaa sidaas waaye sidaas oo kale waaye ratio amba saamigu tusaalaha labaad dambiil ayaa waxaa ku jira 4 tufaaxa iyo 6 liin ah 4 tufaaxa iyo 6 liin ah ku jirta saamiga tufaaxa iyo liinta waa 4 ilaa 6 waa la isku yareyn karaa marka saamiga waa la isku yareeyaa marka la isku yareeyo waxaa qasaba number isku mid ayaa laba dhinac u qaybine marka waxaan samaynaynaa 4 iyo 6 maxay wadaagaan labay wadaagaan 4 lagu qaybi waa 2 6 lagu qaybi waa 3 waa 2 ilaa 3 2 ilaa 3
ayaa loo qori karaa ratio ahaan haddii si kale loo yidhaaho 3 iyo 2 5 maano 5 mir oo dambiisha ku jira hadii lasoo baxo 5 mir dambiishaas waxaa ku jirta 4 tufaax iyo 6 liin 10 xabo ku jirta maano 5 xabo ka mid a mirahaas hadii lasoo baxsho 3 waxay noqonaysaa liin 2 waxay noqonaysaa tufaax 2 waxay noqonaysaa tufaax qaabkaas isku qaabileen waayahay saami halka uu soo gudbaynaa waa maxay saami gal imaanaynaa hadda waxaan isla soo fahanay saami waa laba shay oo la isbarbar dhigaayo waayahay saami gal muxuu yahay marka saami gal waa marka laba saami ay isku dhigmaan laba saami markay equal noqdaan amba isu dhigmaan qiimo ahaan ayaa waxaa loo yaqaanaa saami gal waaye saala soomaalidu waxay aqaan jirtay xilligii aysan lacagta jiri jirin waxay aqaan jirtay xoolaha markay kala gadanayso geela ari ku kala gadan jireen geel waxay ku kala gadanayaan ari tusaale hashaan 15 neef oo ariha laga siisaa macnaha hashaan 15 ay u dhigantaa saami gal ay u tahay waaye oo loo qaadan karaa waaye waxaan shaygan waa loo qaadan karaa waaye saami gal waaye marka saami gal waa marka laba saami ay isu dhigmaana loo yaqaanaa tusaale fiiri kana sawirkan fiiri sanduuqan 3 mira ku jirta amba 3 xabo sanduuqan waxaa ku jirta 6 mir ku jirta yaa aan ka soo qaadno tusaale ahaan 1 xabo cambe ah iyo 2 xabo tufaax aan iskaga dhahno kan 2 xabo tufaax intan waxaa ku jirta 2 xabo cambe ah iyo 4 xabo tufaax fiiri marka sanduuqan miraha ku jira waxay u dhigmaan sanduuqan miraha ku jira cambaha ku jira ee bislaaday cambaha sanduuqan ku jira wuxuu ratio ahaan u dhiganyaa sanduuqan cambaha ku jira sababtoo halkii cambe waxaa meel ku raxaraysan 2 xabo oo tufaax halkaana fiiri 2 xabo cambe waxaa meel ku raxaraysan 4 xabo tufaax marka halkii cambe waxaa ku soo aadaa 2 tufaax halkaana halkii cambo 2 tufaax ratio ahaan isku mid waa marka 3 mirood fiiriya 3 mirood oo sanduuqan ku jirta 1 xabo cambe ka ah halkaana waxaa waaye 6 mirood oo sanduuqan ku jirta 2 xabo cambe ka ah waa markaan kuwan cambe u qaadanayaa tusaalooyin leh waa sanduuqan marka miraha ku jira ratio ahaan waxay u dhigan yahay sanduuqan miraha ku jira cambaha ku jira ratio ahaan waxay u dhigan yahay cambaha sanduuqan ku jira sababtoo hadda inta 2 loo qaybsho halay naqa inta 2 loo qaybiyo 3 waxay naqa 1/3 marka labadan xabo cambe 6dana ka dhacay dadka kala qaybsadaan 1/3 naqanaya ratio ahaan isku mid waa marka iminka sanduuqan waxa ku jira waxay la mid yihiin sanduuqan waxa ku jira waa saami gal ayaa la yiraahdaa halkan fiir asagana baqashkan amba goobadan waxa waaye haafna waa cadaan haafna waa guduud marka waxa waaye labada haaf mid ayaa cadaan ka 1/2 waaye mid ayaa rinji ka ah labada goobood mid ayaa waxay tahay rinji kana guduudkaas rinji ka ah halkan imaw 4 loo qaybiyey 4 qaybood marka haaf ka mid ah rinji ah laba goobood rinji laba rinji ma waa haaf marka waxa waaye 4 ayaa rinji ka ah haddii inta lagu qaybiyo 1/2 ku soo dhamaanay kan 6 loo qaybiyey 6dii haaf ayaa haddana rinji ka ah waa haafkan oo kale la mid ah kan waxaa loo qaybiyey 8 goobood 8 goobood haaf ayaa rinji ka ah mar walba haaf kala bara rinji ka kan kala bara rinji ka kan kala bara rinji ka kan kala bara rinji ka saamiga inta kan rinji ka kan rinji ka saami ahaan isu dhigmaan waa proportion marka kan wuxuu dhigayaa kan wuxuu dhigayaa kan proportion waa saami gal ayaa la yiraahdaa saami gal marka aan fahno umaleynaa saami gal waa laba ratio ayaa la isku dhigaa kana waa ratio waana isku mid in isku mid noqdaan la rabaa in isku mid noqdaan ayaa la rabaa halka cambo 2 tufaax ku soo aada kan 2 cambo 4 tufaax ku soo aada waa isku qiimo sababta labadan haday kala qabsadaan midkiiba 2 helaya soo maaha isku qiimo waa maga saami gal ayaa leeyahay markaas oo kale qaabka loo qoro waxay noqonaysaa a ilaa b waxay la mid tahay c ilaa d amba a ilaa d ay la mid tahay
ingiriis marka loo akhriyana waxaa waaye a to b waxay la mid tahay c to d. tusaalaha koowaad fiiri marka waxaa la yidhi axmed iyo liibaan waxa ay ciyaareen kubadda kolayga. axmed waxa uu tuuray kubadda 60 jeer. 60 jeer ayuu gemay kubadda. waxa uuna la gefay 15 jeer. 60kii 15 jeeruu la gef. 45 jeer waa dhaliyey. liibaan waxa uu tuuray kubadda 32 jeer. waxa uuna la gefay 8 jeer asagana. ma isu dhigmaa saamiga khaladyada axmed iyo liibaan? khalad axmed inta uu khaladiyey saami ahaan, liibaan inta uu khaladiyey ma u dhigantaa? mase midaa khalad badan? examples inaad ka shaqaysaa la rabaa. qaacidadan isticmaale waxaa waaye a ilaa b waxay la mid tahay c ilaa d. macnaha axmed inta uu tuurtay iyo inta uu khaladiyey ayaa waxay la mid tahay aa u qoraynaa liibaan inta uu tuurtay inta uu khaladiyey. kadibna qaacidaana u xalinaynaa. furfur waxaan leenahay axmed wuxuu tuurtay 60 15 una khaladiyey waxay la mid tahay inay la mid tahan u qaadanaynaa 32 oo tuurtay liibaan 8 una khaladiyey. marka halkaas joogno waxaan qoraynaa nuucan u qaybi saamiga nuucan noo loo qori karaa u qaybidaana u bedelaynaa saana u qoraynaa 60 jeeruu tuurta 15 jeer u qaladiye waa u qaybi waxay la mid tahay 32 tuurta 8 jeer u qaladiye. haddaan nuucan u qorno maxaan leenahay marka waxaan isku dhufanaynaa qaab isweydaara. waxaan isugu dhufanaynaa qaab isweydaar isdhaaf. isweydaar waxaa loo yaqaanaa 60kan 8 ku dhacee 15kanna waxay ku dhacaysaa 32 ku dhacee. isweydaarkaasaa la yidhaha. waaya 60 markii 8 lagu dhifto waa 480. 15 haddii 32 lagu dhiftana 480. fiiri marka qaladkii axmed wuxuu ku dhacay inta jaanisoo tuurtay liibaan. qaladkii liibaanna wuxuu ku dhacay inta jaanisoo tuurtay axmed. isku mid ayna noqdeen jawaabta soo baxayso. markaas noocaasay noqoto isku mid noqdaan saamiga khaladyadoodu waa isku mid. saamiga khaladyadoodu waa isku mid ma kala khalad badno. sababtoo ninkan jaaniska waa isoo 32 inta uu ka khaladay iyo ninkan 60 intuu ka khaladay waa isu dhigmaan saami ahaan. tusaalaha labaad waxaa la yidhi 60 arday ayaa u fadhiisatay 60 arday oo ku jirta hoyga dugsiga beeraha ee degmada Balcad ayaa waxa ay u baahan yihiin 150 saacadood oo cabitaan ah maalintii. 150 saacadood oo cabitaan ah ay u baahan yihiin maalintii. haddii ay noqdaan tirada 90 arday imise saacadood oo cabitaan ah ayay u baahan yihiin maalintii? si fiican u fiiriya 60 arday waaye oo dhigata dugsiga beeraha ee Balcad waxay u baahan yihiin 150 saacadood oo cabitaan ah maalintii. haddii tiradii 60 aad laga dhigo 90 arday 150 ma ku filan yihiin? waa maya soo maaha. imise saacadood oo cabitaan ah ay u baahan yihiin? halkan 60 arday saamiga u dhigmo waa 150 oo maalintaas ku filan. 90ka saamiga u dhigma laga rabaa. furfurdhe marka waxaan leenahay 60 arday waxaa u dhiganta 150 saacadood maalintii u baahan yihiin waxay la mid tahay 90 arday waxaa u dhiganta idane 90 arday ilaa xa aan leenahay marka 90 arday cabitaanka ay cabayaan ma naqaan xa aan u qaadanaynaa. xa maxay u taagan tahay marka waa tirada gasacyada cabitaanka maqan. xa haddaan soo helno waxay u taagnaa doontaa tirada gasacyada cabitaanka maqan oo 90 arday ay u baahan yihiin. qaabkii u qaybaan qorayna marka 60 la hoos dhiga 150 waxay la mid tahay 90 la hoos dhigay xa. waxaan isugu dhufanaynaa qaab isweydaara isdhaaf isugu dhufanaya. xaadu waxay ku dhacaysaa 60 150 waxay ku dhacaysaa 90. xa lagu dhiftay 60 waa xa ku dhacsan 60 150 iyo 90 waa kuwa isku dhacsan yihiin. caadi isugu dhifo marka waxay noqonaysaa 60 xa 90 markii 150 lagu dhiftana waa 13,500. meel walba waxaan u qaybinaynaa 60 sidan xa u soo helno inta 60 u qayb intana 60 u qayb. xa waxay la mid tahay 225 marka 225 haddaa xa maxaan u qaadanay tirada gasacyada maqan. hadda maxaa soo baxay 225. ma fahmi kartaa 225 waxay tahay marka waa tirada cabitaanka ay u baahan yihiin 90kan arday. halkan fiiri 90ka arday maalintii waxay u baahan yihiin 225 xabo. 60 arday markii aan 150 ku filneed 90 markii laga dhigay saamiga ku filan noqo
225 xabo oo cabitaan ugu baahan yahay. Aad iyo aad. Waayahay, go ahead. Tusaalaha saddexaad. Tusaalaha saddexaad waxaa la yidhi Nuur waxa uu ku safray baaskiilka fogaan dhan 190 kiiloomitir muddo 3 maalmood. 190 kiiloomitiro muddo 3 maalmooda ku safray. Axmed waxa uu ku safray baaskiilkiisa fogaan dhan 380 kiiloomitir muddo 8 maalmooda. Saamigal ma yihiin fogaanta uu safray Nuur muddo 3 maalmood ahayd muddadii 3 maalmood ahayd iyo fogaanta Axmed uu safray muddada 8 maalmood ahayd. Axmed 8 maalmood wuxuu ku jiray 380, Nuurna 3 maalmood wuxuu ku jiray 190. Fogaanta ay safreen saamigal ma tahan. Nin walba maalmihiisa marka loo fiiriyo saamigal ma tahan. Furfur dheh. Waxaan leenahay Nuur waxa uu safariyey 190 kiiloomitir 3 maalmood inay ku qaadatay oo la mid ah 190 loo qaybiyey 3 loo qori karaa. Axmed waxa uu safariyey 380 kiiloomitir 8 maalmood inay ku qaadatay oo la mid ah 380 la hoos dhigay 8. La hoos dhigay 8. Waxaan qoraynaa marka waa is barbar dhigaynaa. Proportion ahaan amba saamigal ahaan. 190 loos dhigay 3, 380 loos dhigay 8. 190kan Nuur ayaa waxa ku safraya 3 maalmood. 380kana Axmed waxa ku safraya 8 maalmood. Waxaan isugu dhifanaynaa qaab isweydaar ah. Isweydaar isugu dhifay marka. Markii 190 lagu dhifto 190 lagu dhifto 8 waxaa soo baxaysa 1520. 3 markii lagu dhifto 380 waxaa soo baxaysa 1140. Yiri marka 1520 iyo 1140 isku mid miya? Maya. Isku mid ma 1520 isku la mid ma ahan 1140. Sidaa awgeed fogaanta uu Nuur socday 3 maalmood iyo fogaanta uu Axmed socday 8 maalmood ma ahan saamigal. Saamigal ma ahan labadan. Ya? Saamigal ma ahan amba proportion ma ahan isuma dhigmaan. Marka saamigalku waxaa rabaa in isku mid noqdaan. Si qiyaadaati oo aan soo qaadanayn. Waaya dhamaad daawadayna sharafta badan oo haddii halkan aad soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa channelka inaad subscribe noo tiraahid, like aad noo saartid muuqaalka, saaxiibada aad la wadaagtid, channelkana aad ku xiraatid. Sharaf iyo karaamo aad u mahadsantihiin.